كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرحوم إدريس حسين عبد الله وحو كل شيء مقالة هرقيسة سنة كمركوها كن سقال بقول شن إيسيديتكي بيشي سدحات مرحومكو الله نحريسته وحبرشيسي هو صلحك بلا المقالة بربرة سنة كمركوها كن سقال بقول أفري سقاشن دكسي لورنجر أبي بن كعب إمي كان الله يقانو إمام الشافعي waxaanu ka gaadhay ilaa fasalka lixaad waxuu intaa kadib u bedeshay magaalada Hargeysa isagoo wareegay dugsi la oran jiray Xamdaan oo ay wax ka dhigi jireen macallimiin Suudaani ah waxaanu dhamaystay ilaa fasalka sideedaad waxuu dib ugu soo noqday magaalada Berbera isagoo ka bilaabay dugsiga sare gaar ahaan isagoo ku biiray dugsiga sare Bursa Secondary School 2004 bishii toddobaad ayuu dhamaystay dugsiga sare Berbera waxaanu ka mid ahaa ardaydii ugu sareysay dugsiga isla markiiba wuxuu deeq waxbarasho ka helay jaamacadda Amuud qaybta education-ka waxaanu ku qalin jabiyay shahaadada dibloma 2006 bishii toddobaad marxuumku waxuu ka mid noqday ururka dhalinyarada iyo Fenko 2005 oo xubin buuxda ka noqday 2008 wuxuu dib ugu noqday jaamacadda Amuud isagoo soo dhamaystay shahaadiisii koowaad ee digriga waxaanu ka soo qalin jabiyay bishii sagaalaad ee 2010 waxuu marxuumku ka mid ahaa xubnihii aasaasay naadiga akhristayaasha ee Berbera 2009kii waxuu marxuumku ka mid ahaa markaa xubnaha ugu firfircoon dhalinyarada Jamhuuriyadda Somaliland isagoo wax kastoo la qabanaya hawl kastoo mutadawacnimo ah kow ka ahaa haddaanu isagu bilaabin allah u naxariistee marxuum Idriis Xuseen Cabdullaahi waxuu kaloo ka mid ahaa markaa bahda sportiga isagoo ka mid ahaa xulka qaranka ee gobolka Saaxil marar kala duwanna u saftay koobkii heerka qaran ee Jamhuuriyadda Somaliland maalmihii uu sii geeriyoonay marxuumka allah u naxariistee waxuu ka fikirayay barnaamij lagu caawinayo ama lagu taakaleynayo qalab si loogu samayn lahaa ama agabka xabaalaha lagu aaso si loo samayn lahaa si ay uga faa'iideystaan bulshada reer Berbera markay xabaalaha ama wax aasayaan waxaan ilaahay uga baryaynaa hooda xaaskii marxuum Idriis in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo mustaqbal waarana oo nolosha ugu bedelo waxaan marxuumka ilaahay uga baryaynaa jannadii firdawsa inuu ilaahay ka waraabiyo taariikhda Idriis mid halkan lagu soo koobi karo ma aha waa mid runtii cid kasta oo dhalinyaro ka mid ah xanuun ku keentay waxaan rajaynaynaa in ilaahay bedelkiisii inagana nasiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم إدريس حسين وحن كحسوستا ما هو كلي نادي آخرس كبر براو كاها برمود وين لكن حن كحسوستا كرتدي سي يو سيدي أيدلين كمجال ده يو أيل كويس العين مالك جديد سو حلا سو شيء جاي كله نقطي بدك يقول ترى بدنا أسكي سلك سو قيب كلام أنت عسير كريا جران حاسكيسا يرير كيسو دنو وحنا الله يسوع قبريا إنه نحرس شنا كورابيو وحنا ناديك كل دردار مية إدريس وحى وكتري وحى هاي فرين قاليا إن خصوص إدريس وكريبا إنه خصبيتا إن ناديك ونقدو نادي يقبله وتاجا لما أنت كله النادي أقرب جسمك مركا وحن إلهي قبرينا شنا كورابيو وحن سلام يا ريكيس وحن سلام هيدي كان سلام يا وحن الله هاي بوشي ودونا يي ما أنت بود قاعدين وديك هالكاميرا يا هالكا كسي ودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. مرحومك إدريس حسين عبد الله
waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay qabriga u nooriyo dhammaan idinkana waxaa idinka codsan lahaa inaad salaad kasta aad u soo ducaysaan ilaahayna u weydiisaan dembi dhaaf. idris waxaanu saaxiibo ahayn muddo dheer, runtii waa shakhsi aanan ilaabi karayn intaan noolahay. wuxuu ahaa runtii qof karti badan, geesi ah, deeqsi ah, oo runtii ka qayb qaata dhammaan wax kastoo bulshada wax lagu qabanayo. waxyaalaha runtii aanan marxuum idris ku ilaabi karin waxaa ka mid ah siduu had iyo jeer ugu jeclaa inuu wax ku soo kordhiyo bulshadiisa. muddadii aanu saaxiibada ahayn runtii idris wuxuu caan ku ahaa cid kastaana ay ku baratay akhlaaq iyo karti. idris allah u naxariistee waxaan u rajeynaynaa inuu ilaahay jannatul firdawsi ka waraabiyo. wuu dhintay maanta, way naga hooseeyaa, laakiin wakhti kasta iyo goor kasta waxay nala jooga waxqabadyadii uu bilaabay oo ay ka mid tahay naadiga akhriska berbera oo idris allah u naxariistay wuxuu tusaale u yahay dhalinyarada reer somalilan. waxaan rajeynayaa dhammaanteen in ilaahay jannada inuu kula siiyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa xuseen cabdillaahi maxamuud, gudoomiye jaamacadda Ardnusbaan ahay. runtii waxaan halkan kacsi jiraanya leh u dirayaa ehelkii qaraabadii ee uu ka tegey walaalkeenii qaaliga ahaa idris xuseen cabdallah, oo runtii nin gobolka saaxib ku ahaa haldoor aynu odhan karno, isagoo ahaa liidar, hogaamiye ahaa, abaabulo ahaa, kaasoo ka qayb qaatay ururada horumarinta ee gobolka ka jira. idris markaad eegtana aqoonta uu bartay iyo hadafka uu xambaarsanaa wax isaga ku ekaa, isaga keligii xambaarsanaana ma ahayn, nin ugu talagalay buu ahaa amaba meesha uu yoolkiisu higsanayay nin qaran, inuu ummad jahliga ka saaro, inuu ummad dhulka ka soo qaado meesha uu doonayo u gaarsiiyo. laakiin geeri ayaan qofna badaynayn, tiisi baa gashay. waan u tacsiyeynaa runtii ka aqoon-yahan ahaan, ka muwaadin ahaan iyo inta gobolka ka soo jeeda ee uu wadaagta lahaa intaba. asalaamu calaykum waraxmatullahi. bismillahi raxmaani raxiim. idris xuseen cabdillaahi allah u naxariistay. runtii aniga xusuuso badan oo aad iyo aad u qiimo badan buu waxa weeye aanu wadaagnay. waxaan runtii aanu ahayn glassmate ama laba qof oo is-ag fadhiista markii aanu ahayn dugsigii dhexe ee madrasadii la odhan jiray imaam muslim. runtii markii aanu ka soo qalinjabinay doorkii waxbarashada waxaanu isugu nimid haddana saaxaddii waxa weeye mutadawiciinta ama ururada oo runtii uu ka ahaa xubin mar kasta aad iyo aad runtii uga dhex muuqatay bulshada somalilan. mar saddexaad waxaanu idris isugu nimid haddana annagoo laba waxa weeye naadi kala hogaaminayna. runtii qof wuxuu ahaa aan waxa weeye halkan lagu soo koobi karin waxa weeye mudnaanta iyo sharafta uu ugu fadhiyey ummadda jamhuuriyadda somalilan. jannadii ha ka waraabiyo. asalaamu calaykum diisan saaxiibka idris allah naxariisto. waa run oo idris ismaana noqon in fara badan, laakiin muddadii koobnayd ee dhalinyarnimada isku baranay ayaa waxay iskaga bartay noloshiisoo dhan iyo qofnimadiisoo dhan. idris allah naxariisto wuxuu ahaa qof ku weyn dhalinyarta reer somalilan, muu ahayn qof keliya u tirsan dhalinyarta reer saaxil. wuxuu ahaa qof strategic noo ah dhalinyar ahaan oo wax kastoon qabanayno aan ku xisaabtanayno halkiisa soo buuxin doono. maalinta la ii sheegay idris waan ka maqnaa waddanka, wallaahi aad baan uga xumaaday. laakiin idris qofnimadiisii iyo kaalintuu bulshada kaga jiray iyo contribution ku lahaa waxa markiiba soo bandhigay media oo markii ugu horreysay aan ku arkay. waayo weli ma arag qof dhalinyaro ah oo intuu dhalinyarta ka baxay ay dunidoo dhan ama dalkoo dhan sidaa u dareemaan. taasi ayaa qofkaan aqoonin idris u sheegaysa qofku ahaa idris iyo wuxuu soo qabtay kusoo lahaa nolosha. maanta reer berbera waxaan is leeyahay qof yar iyo weyn wuxuu ahaa halyey u jira. reer berbero keliya annagana wuxuu noo ahaa halyey noo jooga oon ku xisaabtanno gooryaayaan mar walbana aan tagno. maantana waxaan is leeyahay waa tabaysaan idris oo halkiisii way bannaan tahay. halkiisii way bannaan tahay. waxaan is leeyahay isaga ilaahay ha u naxariisto. qoyskiisa cusbaa uu ka tegayna waan ka tacsiyadaynayaa. hadda ka horna waan ka tacsiyadeeyey.
waxaan is leeyahay dhammaan waa la wada taliyaa laakiin ilaahay bedel khayr qaba iyagii annagaba halana siiyo dhalinyarta kale ee joogtana model buu u ahaay annaga iyo kuwa kalaba sidiisaas oo kale aan u xusno goor walba iyo goob walbana dabeecadiisi iyo dadnimadiisi hala yimaadaan dhalinyarta kale ka dambeysay oo ay ku daynaysay Idris waayo waxaa nin bashaasha furfuran maalintii ugu horeysay isbaranayba waxaan u ekaan sidii niman is yaqaanay weligoodba markaan berbere tegayo Axmed baan awal la hadli jiray nin saaxiib nahay Axmed Abukar la yiraahdo laakiin markaan Idris isbaranay anoo joogu man Axmed la soo hadli jiray taas waxay muujin Axmed sagal isu ka xiray ninkaas taas waxay muujinaysaa qofka ballaadnadiisa iyo sidoo ahaa Allah ha naxariisto samri iimaan Allah ka siiyo isaga iyo intii kale ehelka ahayd intii kale ehelka ahayd iyo annagaba bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un geeri naxdin laba ahayd geeri dhamaan saameysay dhalinyarada gobolka saaxil bay ahayd geeri aan arag ama aan aniga runtii aad ugu weyneed bay ahayd waayo saaxiib aad nuugu dhow buu ahaa saaxiib nala jecel horumarka ayuu ahaa waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo waxa uu ahaa marxuun nolol cusub rabay inuu bilowdo laakiin waqtiga iyo moodku uu saamixi waayay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay uga baryayaa inuu jannadii firdawsa saaxiibka Idris Xuseen Cabdilaahi ka waraabiyo samiriya iimaanna marwadiisii uu ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un بسم الله الرحمن الرحيم إدريس حسين عبد الله إلهي هاونا حريستو إنا لله وإنا إليه راجعون وحوها ويلدان يرأى وإن بدن أنه وان إسلا سوق هذا نوح برشو دوكسي دحى يدوكسي سروا إسلا مركان هذا نوحها أجاسمها أما حجريها هذا الجرا بربر إدريس كلب إدريس حسين عبد الله إلهي هاونا حريسته وحوها ويل كضيشة مدن وإن بدن أن يرى ذا بربر كوديري جري qoraalka iyo akhriska Allahu naxariistay isagoo hawsha culus ku jira ayuu Idris waqtigiisa dhamaaday inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim kullu nafsin da'iqatul maut qof kasta oo bini aadan uu dhimanaya geeridii saaxiibkayga qaaliga ah ee soo dhaweynta wanaagsana ee Idris waxa ay ahayd geeri naxdin leh geeri qaaday haliyay geeri qaaday xildhibaan dhalinyarada ka tirsan oo dhalinyarada Soomaaliland oo dhan u fadhiyay gobolka saaxil ee Berbera waan dareensanahay oo qof kasta uu dhimanaya aniga ayaa dhimanaya idinka ayaa dhimanaya qof kasta adduunka saaran ayaa dhimanaya hase ahaatee geeridaasi waxay ahayd oo naxdin badan Rahmaanka ah waxaan uga baryayaa إنه قبرك إنا لله وإنا إليه راجعون